الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وصحبه أجمعين ودرسي كوبية لباتنات هي كتاب كني الداء والدواء للإمام ابن القيم رحمه الله. waxaan ku jirnaa weli qeybtii cuquubaadka macaasida ka dhasha. waxaa ka mid ah macsida waxa ka dhasha waxaa qofka ku dhiiranaya wax aan ku dhiiran jirin waagii hore, oo asnaafta iyo qeybaha makhluuqaadka ah baa ku dhiiran. qofku markuu dembi bato waxaa ku dhiiranaya shayaadiinta oo dhibaya, oo baadiyeynaya, oo waswaasinaya, oo takhwiif iyo cabsigelin ku sameynaya, oo murug ku abuuraya, oo halmaansiinaya wax dikrigiisa iyo xusuustiisu fiicnayd, oo dhibaya madaradiisa iyo dhibkiisuna inuu halmaamo wax aynan fiicnayn inuu halmaamo bay halmaansiinayaan. waxaa ku dhiiran oo kale qofka shayaadiinta insiga ayaa iyaguna ku dhiiran oo dhibaya isagoo joogiya isagoo maqanba. waxaa ku dhiiran xataa ahalkiisa iyo reerkiisa iyo awlaadiisa iyo ilmihiisa iyo deriskiisa, xataa gaadiidkiisa ku dhiiran oo ah xoolihii iyo wixii uu saarnaa gaadiid hadduu lahaa. dadkii salafka qaarkood baa waxay odhan jireen innii la acsi illaah, ilaahay baan caasiyaa. waxaan ka gartaa cisyaanka inaan alla caasiyeyna akhlaaqda iyo dhaqanka reerkayga, xaaskayga iyo daabadayda oo ah gaadiidka uu saaraa, hadduu riti ahaa iyo hadduu faras ahaa iyo hadduu dameeraha wixii waagii hore la kori jiray, kuwaasaan ka gartaa. hadday hadda tahayna baabuurta dadku ay qaataan ayaan ka garanayaa buu odhan jiray. macsiyada waxaan ka gartaa raadkeeda dhaqanka reerka iyo dhaqanka caruurta iyo dhaqanka gaadiidkaan ka gartaa. wakadaalika waxaa kaloo ku dhiiranaya dadkii madaxda ahaa oo iyaguna ciqaabaya oo xataa naftiisa ayaa ku dhiiran baladhaa. qofka macsiyada badan oo hadduu rabo khayr inuu aadsiiyo yeeli mayso, way diidaysaa, bal waxay u kaxaynaysaa macaasida iyo meelaha macsiyada leh ayay u kaxaynaysaa. cuquubaadka ka dhasha macsiyada waxaa kaloo ka mid ah waxay khiyaamaysaa addoonka ee naftiisii xilligii uu ugu baahay badnaa ayay khiyaamaysaa. hunaa addaamatu lkubraa, waa arrin weyn ayaa halkan ka soo socota. ujeeddadu waxaa weeye ayuha alikhwa walakhawaat, addoonku markuu ku dhaco shidda iyo kurbo iyo xaalad adag oo ku jiro, yaa waxaa khiyaamaya qalbigiisa iyo carabkiisa iyo xubnihiisa. shaygii anfici lahaa kuma dhawaaqi karo. qalbigiisu tawakulka ilaahay iyo u noqoshadii ma samaynayo. ayib, walaa yutaawicu lisaanu, carabkiisuna dikrigii ilaahay ma samaynayo. xubnihiisuna daacadii ma samaynayaan. amarku intaa wuu ka sii daran yahay oo qalbigiisu wuu khiyaamayaa, carabkiisuna wuu khiyaamayaa. bimacnaa wuu khiyaamay waxaa laga wadaa adoo u baahan inaad wixii fiicnaa dhahdo cinda alixtidaar, markii qofka lagu soo xaadiro oo geeridu imaanayso, alintiqaal ila allahi tacaala, markuu ruuxu alle xaggiisa u sii socdo ayaa wuxuu diidayaa carabkiisu xitaa annutqi bishahaada, inuu shahaadada ku qowlo, ku dhawaaqo. sida dad badan ba la arkay markay naftu ku soo xaadirtay in la yidhi dhaha laa ilaaha ila allah, oo qaar bada ay yidhaahdeen laa astatiicu an aquulaha. intay afka kala qaadeen ayaa waxay yidhaahdeen kari mayno inaan dhahno. qolyo kale waxaa laku yidhi laa ilaaha ila allahu dhah. markaasaa wuxuu ku dhawaaqayay qinihii iyo heesihii uu qaadi jiray buu taatana wixii uu aqrin jiray buu aqrinayaa. qolyo kalena waxaa lagu yidhi laa ilaaha ila allahu dhah. waxay yidhaahdeen maxay naga anfacaysaa laa ilaaha ila allah, ma jirto macsiya adduunka la sameeyo ilaa waan samaynay. kadibna naftii saasay kaga baxday
qolyo kale waxaa lagu yihi laa ilaaha ila allahu dhah. wuxuu yidhi maxay ii taraysaa, ma garanayo weligay inaan tukaday hal salaadna, marka sidaasina naftu kaga baxday. qolo kale waxaa lagu yihi laa ilaaha ila allahu dhah. wuxuu yidhi wa huwa kaafirun bimaa taquul, waxaad sheegaysaa waan ku gaaloobay buu yidhi, sidaasina naftu kaga baxday. qolo kale waxaa la yidhi laa ilaaha ila allahu dhah. mar kasta uu doono inuu ku qowlana wuxuu yihi carabkayga waa laga celinayaa. qolyo kale waxaa la yidhi laa ilaaha ila allahu dhah. markaasaa wuxuu lahaa hadihi lqidca rakhiisa wahada mushtaran jayid, yacni sidii suuqi isagoo taagan wax kala beecinaya ayuu leeyahay, tani waa raqiis, tani waa qaali, tani waa rakhiis, tana waa qaali. sidaa isagoo dhahayay naftu ka baxday. ilaahay subxaanahu watacaala xusnulkhaatima haynagu arsaaqo, ilaahayna kelimatu tawxiid haynagu dilo. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله.